sida caalamka intiisa kale amaba wadamada reer galbeedka la isu weydiiyo maxaad qabanaysay berigii madaxweyne Kennedy Mareykanka la dilay ama maxaad qabanaysay markay shilka gaari ay ku geeriyootay amiiradii Diana iyo waxyaabaha la midka Soomaalida waagaasi jirtayna waxay isweydiiyaan xageed joogtay ama maxaad qabanaysay markii sanadkii 1984 la afduubay diyaaradii Somali Airlines afduubkaasi waxa uu ahaa kii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee loo geysto diyaaradda ee lahayd sharikadda Somali Airlines haddaba duulimaadkaasi waxa hagayay amaba kabtanka ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi oo ku magac dheer Xaaji Dhagax oo imika ku sugan magaalada Hargeysa waxaana uu iga sheekeeyay sidii afduubkaasi uu dhacay iyo sidii uu ku dhamaaday sheekadina dhex martayna waxay u dhacday sidan Maxamuud Xaaji Cilmi Xaaji Dhagax aad iyo aad baad mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Hiriiriya Hargeysa iyo telefishinka Universal duulimaadkaasi xaguu ka kacay xaguu ku socday bal hadda tafaasiil naga sii duulimaadkaas wuxuu ka kacay Xamar Muqdisho wuxuu u socday Jidda laakiin waxaan sii mari lahayn Berbera marka intaan la soconayba waana afduubka markaa wuxuu ka dhacay soo dhaxaysa Muqdisho iyo Berbera waa tay marka aan garanaysaa cruise level ama marka diyaaraddu meesha ugu sarreysay u socotay oo dhirifka markii gaarto markaas way marka uu afduubay awli adami waa tay marka maasha laakiin kala ku yeelay awli cadami Soomaali laba kala ma nin ku biiray iyo nin la socdayba Xaaji Dhagax markaa ammaanka sida caadiga aad baa loo ilaalin jiray si ugu suurta gashay in hub ay la koraan diyaaradda ragga afduubayaasha fiiri marka la afduubay waa 84 Soomaaliya afduub lagama aqoon nin haddana kaaga daranka oo kabtan ah oo labisan marka uu meelaha qaarkood marayo salaam baa loogu diri jiray waagaas in loo soo dhawaado oo korkiisa la taabto ama la tuumo ma jirin kabtan buu ahaa waa labisnaa wuxuu ku maray bikullu ixtiraam marka isagoo markaa dabcan hubaysan hub noocee bay siteen markaa ragga afduubayaasha annaga waxaan aragnay laba bistooladood baan aragnay bambana waa la sheegay laakiin laba bistooladood waa hubaal indhaha saaray markii ay sheegeen in diyaaraddu afduuban tahay maxay idinku amreen diyaaradda intayan afduuban baa tila dhacday waa tay ninkan wuxuu fadhiyey first class waa tay classka wuxuu fadhiyey oo noo dhow first class wuxuu u dhow yahay cockpitka hay marka uu quraacday ayuu soo orday oo aniga la soo aaday waa tay gabar Sucaad la yiraahdo oo gabdhaha horjoogta u ah oo diyaaradda ka shaqeynayay baa waxay aragtay ninkan quraacda uu cunay afkiisa waxa ku soo harsanaa ukun buu cunay calaam ukun usan iska tirin marka way shakiday ishay la raacday waxay moodaysay inuu xanuunsan yahay uu suuliga u socdo ishay la raacday mise anigu noo soo gudbay waa tay kasoo daba orday way isla soo galeen cockpitka halka diyaaradda laga wado marka way isku duubtay isla markiiba maxaa jira ninkan bistoolad buu la soo baxay orodkii soo orday gabadhii ay isku duubtay baa waxaa soo orday kii security-ga qaylada baan aniga ku soo jeedsaday maba u qaadan afduub dad ismaagay baan mooday waxaan iska furay suunkii inaan kala dhacshaan u kacay waana kelmad hadhow i dhibi doontaa si gaara ii weydiiyey arrintaas markaan si wacan aanan u istaagin bastooladii buu la soo ka fara baxsaday kulligood sidaasuu igu soo aadiyey waxaa qabtay ninkii security-ga asagay ku dhacday markaasuu diyaaradii marka labadoodiiba dhaawac bay noqdeen hal wiilkii baa dhaawac noqday marka waa baxeen hadda qaraxa diyaaradana irka waa xoog badan yahay
أنا قبشتي أنك جبنا أي مارت إيشة أي وحي جارين كرسي جيبان كل نقضي أكان كرسي وكل نقضي قداش شيء أيوه soo fadhiistay waa qeylinayay noocan ma in wax noo sheego هاي marka muxuu ku qeylinay marka maxaad ka xusuusataa waxaan ka xasuustaa dad la dilaayo maartay baan anaga badbaadinaynaa diyaarada waxaan u afduubayaa dad aan badbaadinayo wax saas afduub markaan maqlay baan gartay in afduub tahay wuxuu naga daadajinayay inuu dad ku badbaadinayo soo muraad naga lahayn markaas kadib waxaan bilaabay aniga in aan asaga la macaamilo waatay waad u dejiso markaa ma wixii baad gartay ad waxa marka aad wax fahamtid baad wax agaasimi kartaa هاي marka mid waxaa jira asagana security-ga mid waa dhaawacmay kii kale oon dhaawacmin baa hadba soo galgalaya oo markaa duulimaad walba kabtan adigoo iga raaliya laba shaqaale ammaanka baa raaci jiray miya laba shaqaale ammaanka haddii laakiin sidaad sheegtay cabsi badan beriga aanay jirin Somalia Airlines-na afduub aanay ka baqanayn maxaa loo saariyay shaqaalaha ammaanka dunida afduub laga bartay anaga Soomaaliyeed afduubaysa anaga aaminsaneyn dunida afduub dunida laga هاي marka security-ga saas loo saar waatay waxaad tidhi ninkii baa dhaawacmay adigina isagii baad u dejisay waad la macaamishay deedna maxaa dhacay horta waxaan ka reebay waxaan gadaasheeda joogaa istooladna waa haystaa waxaan iri ma isticmaali farma dhaqaajin kartid waxaa jira hadduu qofka afduubaha uu kaa shakiyo waa dhibaato waxaan iri ma isticmaali karaa public address-ka haa buu yiri public address-kii baan qabsaday passagerkii iyo security-gii iyo dadkii oo dhan baan waxaan u sheegay inay isdhiibaan oo isu dhiibaan nimankan diyaaradda afduubay imise qof baa saarnaa markaa kabtan waatay deedna dadka waxaad ku amartay inay la shaqeeyaan isdhiibaan waxaan dadka u sheegay inay isdejiyaan aan ku dadaalayno in aan ka samata baxno waxa aan wax kula jiro maxay idinka dalbadeen ugu horreeyay markaa intaan la gaarin wuxuu bartay public address-kii oo arkay halkaad ka hadlaysay waa kiibuu qabsaday wuxuu la hadlay passagerka sidii aniga ula hadlay markaas buu wuxuu yiri kooxdan nala socota oo gadaal joogta idinma baahnina iska jooga aan isdhaqaajinina kow wuxuu kaloo yiri gabadha bambada ee hoosteeda taal dhaqdhaqaaqa badan jooji iyo geedda kugu qarxina marka dadkii cabsi gelin baa waxba ma ka jiraan dad badan ma ayan ahayn laakiin dadkii buu sidaas ku amray anigana shakaana galay diyaaradii sidaas buu ku milkay marka passagerkii iyo security-gii iyo dadkii oo dhan way u hoggaansamay markii loo hoggaansamo diyaaradda milkay ayuu wuxuu yidhi cadan igey cadan markaan tagnay cadan waa la hadlaysaa هاي markaan tagnay cadan bay cadan naga diiday in aan dalkooda ku degno waa ma gudbi kartid ilaa uu tiri ama fasax hadaadan ka haysan dowladda ma geli kartid maxaa jira cadan dhibaatada ay qabtay waxaa weeye hadda ka hor baa diyaaradda lasoo mariyey oo lasoo afduubay kabtankii baa lagu dilay meesha oo jarmal ahaa marka maalin walbaba wafdi iyo maxaa midinka magaranaysaa dadkii afduubay dhibay oo midinka maxaa kabtanka loo dilay waxaasoo dhibaataa inta la galeen bay noo diideen inaan meesha galno marka baddaan badda cas baan wareegaynay meelaan aadno mar alla markay diideen waana aan maqashiyey speakerkan u furay codka soniga shaki meesha khatarsan afduub cawil cadami markii uu ogaaday in cadan loo diiday cadan buu noo waday cadan waa uu ka xumaaday aad buu xumaaday cadan baa waxay gaarsiisay Jeddah Djibouti Addis iyo ereeyadoo dhan
إن diyaaraddaasi hawada marayso afduubanta afduuban tahay oo yaanan diyaarad loo soo dirin maxaa jira aniga irtifaac ama joog aan haysanaya male jooga iyo socodka oo dhan ninkaana xukuma nidaam ma ku socdo marka diyaaradihii oo dhan baa la yidhi ha soo gelinayaan mantiqadaas sidaas ayaa dhacday markaas kadib baa waxay yidhaahdeen jabuuti waa tahay baan iri haddana waa ka shakiyeen libiya nagee bay yidhaahdeen libiya shidaal iguma jiro ayaan ka niri kadib bay soo baxday in Addis Ababa in la aado iyo Addis nagee Addisna marka waaba ogeedba diyaaradda inay afduuban tahay oo hawada ay ku jirto oo cadan baa sheegtay sidaasaan waxaan ku aadnay Addis marka Addis Ababa marka ka dalbateen ogolaanshiyaha ina hawadooda soo gashaan oo ku degtaan markiiba way ka ogolaadeen miya markiiba waa naga ogolaadeen aniga waxaan ku mashquulsanaa mar kastaba cawil in uusan naga shakin waxaan tusay dir dhaban ka gelinay in aan dir dhaba ku baadanahay waxaan tusay maapkaan tusay lambarka raadiyaha dir dhaba inuu kan yahay kan gashanayna inuu kan yahay mar kastaba waxaan ka shaqeynay mar kastaba ninka inuu gasho adigoo iga raaliya sheekada afduubka halkaas aynu kasii wadi doonaa laakiin sideedaba tababarka laydin siin jiray miyay idinku jirtay haddiiba afduub dhaco waxaa yeelaysaa may wax loo yaqaaniba maha waxa gartay macaamilada markaas sidaana aad ula macaamilaysay iyo waxaad tusaysay iyo waxaas oo dhan ma mid adiga pilot ahaan ama kabtan ahaan dee aad garanaysay unba markaa maya wallaahi ilaah baa igu aadiyey haddii wax badan oo kasoo tegay baa jira waxaan ka soo tegey markuu diyaaraddan afduubay gadaasheeda markuu fadhiyey baan waxaan ka codsaday ma quraacan karaa markaasuu yidhi cabaar buu fikiray wuxuu yidhi haa marka maxaa aniga aan niyaddayda aan ku jiraa waxaan jiraa يعني ما دش أمس ما ديسا هذا ماشي إنك بحضه أو أن أقول حنو وراعد ما هو قرأت من سوى جدة يعني أغلية هاي مركا سلاسة لما عمل أي إن منكاس إن أنا مرة بقى أنا تكرم وقتها أدي سبب إذا قرأتي وكدكتين ده محد عاي أدي السبب تجني وكدني دمركي عروتي ولا صاري ودي واحد بدلنا واكسر تجني كممكن لكن شركة اللي كجيب دونا دمر يعروتي والد جيي أنا جيبا اسكسو هري واحد بدل أنا ما أنا وجين ماشي من كان وفيلاي ديارد إنه صوف ولدونا وزير كأرمها دبده ما صار راعي لكن وفدي أي صار واي دنك مؤسنجلين دنتا mar alla markaan dhulka tagnay wuxuu yeelay oo nin baan dhaawac naga gaaray intuu isku kaayo wacay wuxuu yiri yaafiya waatay hadda nin bastoolad haysto ku hortaagan oo ku yiri yaafi waa ku afiyay هاي هذا الكلام ما بتجري به هذا الكلام wax kalena waa yiri markuu degayba markaa uu leeyahay joogno meesha wuxuu bilaabay asaga markii inuu aniga looma sheegin laakiin wuxuu bilaabay inuu la macaamilo dibadda sababta waxa weeye nin Mareykan iyo laba professor oo Talyaani ayaa saaraa markiiba arrintu waxay yeelatay in ay aad u dhaqaaqdo safiirka Talyaaniga uu shaqeynayay si aan caadi ahayn wuxuu daneynayay labada professor iyo kabtanka alxdiglaha Mareykanka dadkaas waxay ahaayeen dad waatay adigoo iga raaliya waxa tiri waxa saaraan nin Mareykan iyo laba Talyaaniya marka dawladahoodu waa xil iska saareen sida la soconona waqtiga kabtan Ethiopia iyo Soomaaliya xiriirkoodu aad buu xumaa wax xiriir oo la sheegana ma jirinba idinka dawladii Soomaalidu sida xiriir u la sameeyeen ama waxa la idinka dalbanayo ugu sheegaysay Talyaaniga iyo baasamiinayay Soomaali meesha kuma jirinba Soomaalidu waxa u dhaxeeyay yani ninkan afduubay iyo Talyaaniga iyo dawladda Soomaaliya ayaa wada hadlay saddexdaas Talyaaniga waatay markii uu idinka dalbaday
ninkii watay afduubayaasha cawil cadame inaa saamaxdaan maxaa dalabee kale u soo jeediyey laba shay waxa kale la yiri markaad Soomaaliya tagtaan waa markiina la sii daynay ko markaad Soomaaliya tagtaan waxaad ugu aragteen waxaan ahayn iga sheegay may waxa sheegaya diyaaradii way degtay afduubkii way ku jirtay maxay dalbadeen in dawladii Soomaalidu ay sameeyso waxay dalbadeen dad baa jiray diyaaradda bas loo afduubay dad baa jiray oo arday inay maraynayo toddoba ah oo la dili lahaa axad annaga waxaan afduubay sabt hadda la dili lahaa dadkaas in aan la dilin bay geedda ku socday ogolaatay dawladii Soomaaliya markaa waa ogolaatay talyaaniga ayaa ka dhex shaqeynayay meesha waxaa socotay negotiation aad u adag imisa maalmood baa markaa joogteen adsawa dumarkii carruurtii wala sii daayay baa tii rag imisa ku haray markaa diyaaradda waxa 105 meelahaas sida u noolaydan afarta maalmood aad sabab fadhideen fadhi waa saas sida loo fadhiyo ayaad ku saaxanaysaa baa waaga kugu baryaayay hurdo ma jirto markaa ma adiga hurdaska gama amumiyaan waa dhibaato cuntadoo kale ayaa siinayay waxaan siinaysay markaan red crosska laakiin sandwich kama badnayn sidee baad la xidhiidhisay markaa rakaabka kale aad ugu sheegaysay hadba waxa socda ma la xidhiidhi karin maadaama adiga qudhaado aanad warbahaynin ma la xidhiidhi karin marmar baan fiirin jiray ama cawil u tegi jiray waxaan oran jiray dad baa jiray oo jilbaha maarta aad u dhigtooday inaan cawil weydiiyo yiraahdo hoosta loo dejiyo waxoogaa yar ha soo socdaa marka ma ogolaan jireen laakiin qofku waa soo noqon jiray meeshoo dhan baa saa haystee markii la idiin sheegay inaa xortiin 4 maalmood kadib dareenkiinu sabab noqdo wallahi 4 maalmood kadib markii la sii daayay aad baan farxan xamal baan aadnay haddii ugu 120 qof oo Soomaaliya xamar 120 milyan waay wax yar maaha xamar markaan ku soo noqonay dadkaas ay soo badbaadeen annaga waxna ma gaarin aad bay xamar ugu soo aad iyo aad baan ugu soo waa tay waxaad sheegtay in adiga qudhaada dhibaato ka qabsatay sidii aad la macaamilaysay afduubayaasha bal hadda taa tafaasiil naga sheeg wallahi hadda intii aan ku sheegi waayo ninkaan fiiri uu ka bilaabay baa shaqada uu ka bilaabay min kelmadii ugu horeysay iyo kelmadiisii ugu dambeysay kelmadii ugu horeysay markuu afduubay oo ahayd dad idinkoo kale abaan badbaadinaya buu yiri waa markii uu afduubay maalinkaan kala tegaynayna wuxuu yiri cafiya waxaad igu kala duwan tihiin ma aqaan dadka aan badbaadinayo iyo idinka mar kastaba asiga mawduuciisa sidaas ugu xidha وهاك كابتن محمود حاج علمي حاج دقح ادي